warkooduna uu cariyo cadadii lagu bihiray hargeysa ciil hamuda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بريان ودم واحد كسر شري برنامج كيني تحناها إن كجاه لينا كجنا تشنيني سيدنا مقالة دينا هالجيسة عاصمة الصومال الآن هروج مرلهين. ما أنت حلقة دي قدام بيسي أيام ربعين كهذا الله ونسلاجنا. حلقتنا waxaan ugu dambeysiyay waa xalqada ugu muhiimsan ee aniga la tahay waa xalqada ugu muhiimsan ee aan rabo inaan isla eegno oo aan ka hadalno maanta oo ugu magac daray investment and youth employment taasoo ah inaanu helo shaqo abuur iyo dhaqaalihi noo saamaxi lahaa haddii la yidhaahdo magaalo ha la hagaajiyo ha la qurxiyo waddooyinka ha la sameeyo parkis ha laga dhiso leegis wax walba loo sameeyo hala qurxiyo haddii ayna magaaladu shaqo u abuuri karin dadkeeda dhalinyaradeeda iyo jaamacadaha kuwa ka soo baxaya iyo kuwa deganba ooyna ku nagayn oona joogi karayn oo ka tahriibayaan waxaasoo dhan waxay noqonayaan biyo coldhaanshay noqonayaan magaaladu waa inay ahaato hargeysa aynu ka dhigno insha allah magaalo loo soo shaqo tago oon laga shaqo tegin hargeysa waxaan u baahanahay inay dhalinyaradeeda fiican ee u soo koraya faraha badan ay haysato oo ay noqoto magaalo dhalinyaradeedu ayna ka tahriibin ay usoo dadku usoo shaqo tagaan waaya haddaba bal aynu isla eegno dhowr arrimood oo maybe inoo sahli kara haddaynu arrimaha ku dhaqaaqno aynu isla eegno aniga fikir ahaan baan idin soo jeedinayaa idinkuna ha dhowtoole waad kusoo dari kartaan insha allah wixii kale kusoo dartaan kusoo dari karaysaan ma ogta ta u horeysa waxa weeyaan magaalada hargeysa si aynu ugu yeedhano investment dibadda inooga yimaada warshada ha ahaadaan bisiise kala ahaadaane si ay dibadda inooga yimaadaan iyo kuweenan localka iyo halkan deganiba si ay u koraan waa inay hargeysa noqoto magaalo maxay magaalo business friendly city waa inay ahaato business friendly city micnaheedu waxa weeyaan magaalo la saaxiiba meheradaha oo sidee ula saaxiib tahay inay u dhib yareyso meheradaha inoo iman doona dibadda inooga iman doona kuweena halkan oo kobcaya waxay dowladda hoose uga baahato dowladda hoose waxay uga baahdaan waa inay u dhib yareyso oo maxaa ka mid ah leysanadoo kale conditionska leysanada lagu xidhayo kambaniyada waa in loo dhib yareeyo oon lagu adkeyn kambaniya waaweyn hadday inoo imanayaan oy shaqaalo badan inooga shaqaysiinayaan waxaynu xataa u sameyn karaa tax breaks baynu u sameyn karaa cashuur dhaaf ayaynu u sameyn karaa kambaniyada adduunyadu markay tartamayaan amba ay rabaan inay meelo kala tagaan amba ay meel shaqo ka bilaabaan dhowr arrimood bay eegaan dhowrka arrimood waxaa ka mid a inay magaaladaasi tahay magaalo business friendly tahay magaaladaasi ay tahay magaalo waxay uga baahdaan businessyadaasi ama meheradaasi kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ka iman doonaaba u dhiibareysa oon wax dhibaatay kasoo gaarin oo waqti dheer ka qaadan dhowr arrimood baaba inta badan la eegaa kambaniyadu eegaan markay rabaan inay meel wax ka sameeyaan mid waxa weeyaan taa ugu horeysa oo hargeysa inay noqoto ama magaaladaas tahay magaalo waxyaabahay businessyadaas uga baahdaan oo hawl yareysa ta labaadna waxa weeyaan inay matalan leyd fiican yeelato oo reliable on leyd dee had iyo jeer ay ku shaqaysan karaan iyo biyo inay magaaladaasi yeelato leyrhkii iyo biyihiiba alxamdulilah dowladdeena sare inoo wada meel fiican bay marayaan oo waxa weya hataa solar systemkeenu aada ugu shaqeynaa imika laakiin innaka magaalo ahaan dowlad hoose ahaan hargeysa ahaan waxaa laynooga baahan yahay inaynu inaynu noqono magaalo la saaxiibta businessyada oo waxay nooga baahdaan u hawl yareysa oona dhibaato ku keenin waaya maxaa ku xiga waxa weeyaan maxaynu waxa u sameyneynaa inaynu helo investment inaynu helo oo aynu kuweena joogaa halkan hadday lacag haystaan ay lacagtii waddanka geliyaan oy ka oy shaqo abuur sameeyaan iyo baanankiina waxaynu uga baahan nahay inay baanan kale inoo yimaadaan oo wixii inkastoo dowladda sarena taa naga shaqada ay geli doonto waxaynu u baahanay baanan inaynu yeelano investment sameeyo oo shaqo abuur waxaynu u soconaa waa maxay waa shaqo abuur baynu u soconaa
shaqa abuur dhalinyaradeenna faraha badan ee waddanka ka buuxda si aynan uga tahriibin waxaan u baahanahay Hargeysa inay magaalo noqoto shaqa abuur samaysa oo kambaniyo u iman karaan oo kuwa halkan jooga ay kobci karaan noqoto ayaa muhiima maxaa ku xiga waxaan u baahan oo kale maxay waxaan ku magacaabay diverse talent maxay noqotay waxa weeyaan shaqaale carbisan oo kala duwan inaynu haysano oo haddaynu kambaniya samaysano kuweena kobcaan oo warshado la sameeyo shaqaalahaas diyaar u yihiin oo ajanabi iyo wax dibadda inooga imanaya aanay jirin jaamacada waxay nooga soo baxa kumayaal baa nooga soo baxa sanad walba dhalinyarada ay nooga soo baxaysa jaamacaduhu waa inay u carbisnaadaan oo u diyaar garoobaan inay shaqooyinka qaban karaan waxaa kaloo inu u baahan nahay maxay waxaan u baahannahay training schools waxaan u baahannahay xirfado kale inu u baahan nahayoo warshaduhu xirfado hadday u baahdaan shaqaalaheenii oo waddanka jooga oo u diyaara oo shaqadii qaban kara waa inaynu haysano oo xirfado badan oo kala duwan aynu dadkeena barra moogta aynu u diyaar garayno si ay shaqooyinkii u qabtaan oon ajanabi dibadda laynoo keenin aynu u diyaar garayno shaqooyinkii qabtaan moogta dhismahoo kale anu kambani waxaan leeyahay kambani wax dhisa naqshadahana sameeyo waan ku dhex jira anuun nimanka wax dhisa dhalinyaro aada u dadaalaysa oo fara badan oo 7 aroornimo iyo 6 aroornimo aroorba soo kala lahaa ayaa nala shaqeeya laakiin ayaga laftooda u baahan in hore loo mariyo oo wax la baro oo loo sameeyo iskuullo dhismayaasha bara oo hadday mashaariic waaweyn noo yimaadaan sida dekedaha oo kale ama waddooyinka waaweyn oo kale ama berisho waaweyn noo yimaadaan dee ka shaqayn karaa oon meel kala tegi oon cid kale uga baahno taas waa taa waaye waxaa kaloo jirta iyaduna waxaa kaloo jirta logisticska ma xuma way fiican yihiin oo meel fiican bay noo marayaan dekadii berbera taas way la ballaarinayaa meel fiican bay maraysaa waddadii wajaale iyo berbere isku xidhaysa way socotaa inoo baabuur iyo diyaarado way inoo yimaadaan waynu okay baynu nahay micnaheedu waxa weeyaan logisticskii haddii magaalada Hargeysa bisiinsadii deganaa ee shaqa abuurka inoo sameynayay hadday wax dirayaan iyo hadday wax keenayaan baa u dhib yaraato de way fiican tahay laakiin taasi warwar badnagama hayo meel fiican bay maraysaa maxaa inoogu xiga waxaa inoogu xiga dalxiisku muxuu sameeyaa dalxiisku shaqa abuur buu sameeyaa waddanka dhaqaaluu soo geliyaa dhaqaalo badan adduunku waxay u tartamaan oo magaalo waliba waxay idan tahay si adduunyada dadka adduunka maraya ee dalxiisaya ay ugu yimaadaan oo lacagta $60 ristaan iyaga u keenaan oo shaqa abuur u sameeyaan dalxiisku waxa weeyaan matala magaalada Paris oo kale Eiffel Tower baa la birtaa la yiraahdaa oo ay sameeyeen oo waxay lacag ka helaan si loogu yimaado waad yaabaysaa moogta masaaridu hadalkeeda daa fircooninta waa u sameeyaan malanaya ayaa u sameeyay ahraamtaasoo dhowr sano ka hor oon joogay oo halkaa family joogan ugu tegi jiray dee waad yaabaysaa waxa dad u yimaada iyo lacagta ka sameeyaan masaaridu waxa weeyaan ilaahay mahadi weeyaan oo aad bay ugu nool yihiin moogta innaku laakiin udheen waxaanu haysanaa ahraam ilaahay halkaa inoo dhigay oo aynu ka faa'iidaysan karno oo laynoogu iman karo oo Hargeysa caan ku tahay ayaanu haysanaa Hargeysa labada buurood halkaa inoo dhigay ilaahay ayaa caan ku tahay waxaan qabaa haddaynu hagaajisano oo aynu si fiican u habayno inay noqon doonto meelo dalxiiska loogu yimaado Hargeysa talabaad waxaa kaloo jirta Hargeysa waxa weeyaan hooyga hidiyo dhaqanka Soomaaliyeed Soomaali marka la eego meel kastoo joogaanba Hargeysa hooyga hidiyo dhaqankeenii waa inaynu hore u marinaa oo Hargeysa loogu yimaada hidiyo dhaqankii lagu yaqaanay oo dalxiis laynoogu yimaada oo Soomaalida kale inoo timaada oo dhallinyaradeena inooga imanaysa dibadda aynu baraa hidiyo dhaqankeenu wuxuu yahay waxaa kaloo oo aynu leenahay meelo inoo dhow oo Hargeysa agaarkeeda oo laasgeel ka mid tahay oo loo dalxiiso waa inaynu dadka u sheegnaa oo aynu dadka dibadda jooga u sheegnaa oo aynu promote garaynaa si laynoogu yimaado oo dalxiis Hargeysa u noqoto diyaaraddan Hargeysa caan bay ku tahay oo waxbay noqotay iminka trademark Hargeysa markaa diyaaraddaas oo kale waxa weeyaan waa si fiican baa loo wadaa meel fiican baa laga dhisayaa waa la hagaajinayaa waxaynu u soconaa waa maxay waxaynu u soconaa waxa weeyaan waxaas oo dhan u sameynaynaa
si dhallinyaradeena faraha badan ee magaalada joogta ee waddanka joogta ay shaqo uga helaan magaalada Hargeysa oo aynay naga tahriibin oo ayna meel kale u hanqaltaagine ay ku kalsoonaadaan magaaladooda Hargeysa iyo waddankooda oo shaqo ka helaan taynoo soconaa waa taa ta ugu muhiimsan waan ku celinayaa magaalo ha la qurxiyo ha la dhiso ha la hagaajiyo haddii aanay dadkeeda iyo dhallinyaradeeda shaqo u hayn waxaas waxma taraan waxaan kusoo gabagabeynayaa in badan baynu isla eegnay waxyaaba badan ka soo hadalay oo aynu soo wadnay iminka waxaanu soo wadnay ilaa biliga bar baynu soo wadnay fikrado badan baad nagu soo kordhiseen oo insha allah aynu ka wada hadli doono waynu sii wadi doonaa waxyaaba aynu magaalada ku hagaajisanayno insha allah bal iminkana idinkuna waxaad kusoo kordhinaysaan tan lafteeda soo wada oo Facebook ay noogu soo dira talabaad waxaan reer Hargeysa idiin sheegayaa musharax baan ahay dowladda hoosaan u tartamaya haddii aan halkaa imaado insha allah waxyaaba aynu ka wada hadlo o dhan ayaynu isla eegi doonaa ka wada shaqeyn doonaa laakiin de foodkiina waan rabaa foodkiina laftiisa waan rabaa ayade waxa weeyaan foodka igala tegin maalinta foodka waxay ka siiye haddii la yidhaha wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warkooduna uu cariyo cadadi lagu bihiray